maamulka marka koonfur galbeed hadda ciidamadiisu ay magaalada Doolo imaanayaan qaybtii koowaad maahan waa qaybtii labaad ee magaalada soo gaaraysa deegaanada Jubbaland ay ka arrimiso qaybtii hore Kismaayo tadoo ciidankii ka soo baxay magaalada Baran Kismaayo jooga hawli meel lagama bixin dowladda Jubbaland baa gacanta ku haysa maamulkooda ciidamada koonfur galbeed iyagoo laba jeer kala socday Jubbaland ku sugayeen oo laba kala jooga waxaan isweydiin mudan ciidankaasi hadda rag ka soo horjeeda maamulka la dhisayo ood moodid meeshii ay ka talinayeen waxyaabihii ay ka digayeen inay saaka ka socoto oo iyaga hadda marxalad aad ay ku dagaalami karaan oo fiican ay u taalo jaanis aad qurux badan bay haystaan oo nimankii ku soo duulay 5 meelood buu kala jabeen nin maanta la socda male garbaare ka soo dega u samir balad xaawo shabaab baa dhexda dhan dhoobanay oo dhexda soo shabaab buurha kabiyo ma dhaxin Muqdisho walaal waxaa soo mariyay diyaaradii tabalcarada waa magac shabaab daarada hadda joogta shabaabkii hawiye isfahmeen nimankaas ma jooga xagan shabaab salaam alaykum feeri nin fiilo la dhaho oo dhaga xiran waraalahow dhagaysadii nin fiilo loo dhaga xiran war nin oo dadkaaga la yiri oo wax kale mari ba macadka al-mashaariq online waa macad noociisu ku cusub yahay dalka laguna baranayo adoo gurigaaga ee goobtaada shaqada jooga quraanka shareecada iyo waliba luqadaha sida Carabida Ingiriisiga iyo waliba Soomaaliga ardaydu marka ay dhameeyaan koorsada kala duwan ee dugsiga ka baxaya waxay helayaan shahaadooyin kala duwan qoor kasta iyo goob kastooda haleelaysaba haata iska diiwaan gali al-mashaariq online bismillaahir rahmaanir rahiim kulanto waxaan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta cawaysinimo qodobkan waxaynu ku eegi doonaa diro biqadaro magaalooyinka Balad Xaawo iyo Doolow ayaynu eegi doonaa dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ka jira isla markaasina bal waxaynu tilmaami doonaa magaalada Doolow ee gobolka Gado ayaan marka hore dul istaagi doonaa bal xogaha ugu dambeeyay ee halkaas ka jira sidoo kale waxaynu eegi doonaa magaalada Balad Xaawo oo ay dowlad goboleedka Jubbaland maanta ku soo bandhigeen ciidamo xooggan ayaan iyadana eegi doonaa iyadoo waliba magaaladaas ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya horey waxa loo xasuustaa in Balad Xaawo ay ahayd meel ay si weyn ugu hardamayeen Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina dagaal xooggan ay ku dhaxmareen Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dowladda federaalka uga wakiilay eriyadaasi ayaa isaguna ku sugan magaaladaasi ciidamada lagu soo bandhigay ee Balad Xaawo waxa ila jooga Cabdishakuur oo qodobkana wax ka weydiin doono markaan ku horeyno meesha la yiraahdo Doolow ciidamadii lafta gareena soo orday magaalooyin badan soo maray waxa la leeyahay way yimideen iyo ma imanin iyo waxba la leeyahay waxa kale oo la leeyahay mas'uuliyiintii laaf gambiyeedka koonfur galbeed ama Cabdicasiis lafta gareen mas'uuliyiintii la socotay qayb ka mid ah ayaa laga yaabaa inay Doolow tagaan xogaha la xiriira arrintaas iyo dhaqaaqyada halka ka jira maxaan ka ognaa bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad maasantahay adee shacabka Soomaaliyeed ee daawanayana aad baan u salaamayaa markaan xogta Doolow dul istaagno horta ciidamadii ka soo baxay magaalada Baydhabo maamulkii hore ee koonfur galbeed waliba hadda ay sheeganayaan in maamulka koonfur galbeed rasmiga ay yihiin hasa ahaatee meesha wixii ka jiro maanta maamul loo aqoonsanaya ciidankii ka tirsanaa ee magaaladaas ka yimid wada dheer bay soo mareen luuq bay ka soo wareegeen meel bohol garas la yiraahdo ayay degeen waxaana la filayaa maalmaha inagu soo foolday waa ciidan tadan waa ciidan 20 baabuur wata oo 17 ka mid ah technical yihiin 17 technical 20 gaari wata 20 gaari wata oo laba gaari bullet proof-in laba bullet proof ku jiro gawaari suuqa ku jira باور تكنيكا انت قال له تكنيكا قريه سارن تكنيكا marka lagu leeyahay gaari iska dulbanaan ma jiro waa gaari qorsaarin weeyaan hada tecnical lagu dhado 17 tecnical ay wataan macal suuqa marka lagu daro 17 tecnical wataan laba gaari oo proof ay wataan iyo gaari ambalaasa waa 20 ka gaari wataan 20 gaadiid ciidan wata ciidan yar ma waa ciidan aad u badan ciidankaasi hal taliya wata hal mas'uul baa wata hal mas'uul ka mar qaadanaya ciidankaasi waxay degan yihiin Bolgaras waxaan la filayaa inay saacadaha nagu soo foodle inay soo gaaraan magaalada Doolow waxa loo diyaariyay deegaanka degi lahaayeen iyo xarunta degi lahaayeen oo qiyaastii la sheegay aag iyo dhul uu ku leeyahay madaxweyne aan dhaado taliyii hore ee ciidanka asluubta qaranka General Mahad dadku yaqaanaan taliye shub aag uu leeyahay inay degi doonaan
walow maamulka doolow ay diyaariyeen meel magaalada ka baxsan oo magaalada korkeeda oo ciidamada fadhiisan u noqon doonto gudoomiyihii doolow oo safar ugu maqnaa magaalada Addis Ababa arrintaas degdeg ugu soo laabtay berrina waxaa la filayaa magaalada doolow inuu soo gaaro oo ka soo baxay Addis Ababa sida xogaha aan waradeen aan la hadlay ay sheegaan waxaa isaguna xuduudda Kenya ku sugan oo gaari doona saacadaha nagu soo foodle doolow gaari doona mas'uuliyiin koonfur galbeed maaragtay ka tirsan oo taliyaamaad ka mid yahay afayeenkii hore afayeenkii aan idhaahdo afayeenkii maamulka koonfur galbeed Ugaas Xasan iyo taliyamahad mufti hore mas'uuliyiin hogaaminayaan inay borderka Kenya ku sugan yihiin una gudbi doonaan doolow ay u gudbi doonaan doolow Soomaaliya ciidamada ugu soo dhaweeyaan marka abaabul xoog badan baa ka jira dhaqdhaqaaq baa ka jira wadasnagasti marka dib la isugu tago ama la soo dhaweeyo dhaqdhaqaaqooda horta kaliya ma daarano ciidanka soo dhaweynta ma daarano sidii hore horta waxaa dhaqdhaqaaq ka socday doolow iyo balad xaawo korkeeda dhaqdhaqaaqaadu wuxuu banba nuur ka socday degmada luuq oo daraad aynu ogeyn in ay aad loo soo tabinayay la isdhex deganaa maanta Jubbaland khaas weeyaan dadkii dhex deganaa waxba kama jiro waliba soo gaaray macalkii soo gaaray intay u yeedhaan bashir jiraad ku qabteen iyo harara ka fadhiya kii dowladda federaalka horta ninkaan ku bar horta madaxweynaha ku-xigeenka Jubbaland iyo horta adeer waa Maxamed Sayid Adeer waa adeer koobaad ma adeer labaad adeer buu yahay dhow inuu adeerka labaad yahay iyo adeer koobaad yahay midkood buu yahay inta isagii u yeedheen oy taliyihii ciidanka daraawiishta Jubbaland dhinaca ka fadhiistay gudoomiyihii degmada Luuqna dhinaca ka fadhiistay macallimiin ah ee shir jiraad ku dul qabteen oo dhimaradeer anagu shalayna hadallada waliba taliyaha uu yiri cajiibha wuxuu war anaga waxaa madaxweynaha noo yiri madaxweynihii intay dowladda federaalka qabteen sankeena caanaha ka lisay Ahmed Maxamed Salaam madaxweynaha noo yiri mana tafarsanin buu dowladda federaalka aan waa isla dhexdeganahay buu waa ciidan aan waxba dhibaato naga dhaxaynin buu laakiin maamul ahaan anagu maamulkii intay dowladda qabteen dowladda baraha talaabiyay yaa maamulkan ka tirsanay weeyaan buu niman la caysada anagu kamid manin gudoomiyaha sanad soo kale waa loo yiri anagu maamul Jubbaland baan u nahay maamul Jubbaland soo magacooday baan nahay halkana amar Jubbaland baa ka socday macallimuha dhaxdooda waxa fadhiya labada nimanka soo hadlayaan taliyihii la lahaa magaalada iyo soo galo qabsado la wareegay yaa dhaxdooda fadhiya labada kursi u dhex fadhiya dhaxdooda u fadhiya wallahi ni reelo aad ay ilmaxayeen ma sha Allah maanta saas kala wada lahayn wax isdira wala arkay aad iyo maanta waxa loo diray mushaarkii ciidamada oo Jubbaland ay dirtaa maanta loo fasaxay ciidamada koobaad ee hadda waxaan filayaa bishaan hadda aan wali bilaabanin oo maanta 26ka ciidan koobaad oo 26 bisha mushaar ku qaata waa reer luuq weeyaan waliba mushaar ka badan mushaaradii hore yaa la siiyay $700 yaa laga samay ciidanka $100 oo premier yaa loogu daray nimankaasi si mug iyo miisaan leh iyo Jubbaland ugu soo biireen dhaqdhaqaaqaas wuxuu ka yimid ay kaga soo noqdeen mugtay bardhaweytay meel dhex taagnaayeen meel dhex yar taagnaayeen oo waxa la isku haystay 50-50 magaalo la kordhiyay hadda maamulkoodii ay rasmi uga tirsanaayeen ayay la mid yihiin oo la dareen yihiin oo la maaragtay maxaan ku raadaayay ama xaalad kama jirto xaalad ka jirto marka xaaladahaas oo dhan iyo macluuq hadda marxaladaas aan hadda ka sheekeynay iyo doolow iyo balad xaawo iyo meelo kaleba wuu ka socday guluf baa ka socday intaana bal gulufka iyo balad xaawo soo imanay magaalada doolow hadiiba reer koonfur galbeed isugu yimaadaan wixii ka nool waxaan ka wadaa waxba kama dhimanine waxaan dowladda kasbaday wixii soo fiigan waxba kama dhimanine dagaal ma galin arda dagaal galaha ku jira nimankii soo socdaa dagaal galee iyagoo qashba ma naga siin waayahay raggaas marka reer koonfur galbeed markay meesha isugu tagaan ma maamulkii koonfur galbeed baa baydhabo fadhiyey bay doolow loo wareejinayaan maxaa doolow ka yaala horta su-aasha markaan weydiinaya waa run doolow waa dhulkoodii waa dhul Soomaaliyeed laakiin maamul ahaan maxaa la damacsan yahay marka halka la tago horta nuurow ciidankii koowaad horta reer koonfur galbeed ee Jubbaland meel ka tirsan yimaada ma ahan Jubbaland iyo reer koonfur galbeedna horta waa dad isku dhex jira oo hal dad ah oo gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland intii hadda madaxweynaha Jubbaland uu joogo Axmed Salaam joogay gudoomiyaha baarlamaanka horta waxa weeyaan waa reer koonfur galbeed weeyaan hadii isir la raacay isir la raacay
rag hadda mas-uuliyiin ahoo fara badan oo koonfur galbeed hadda jooga magaalada baydhabo xildhibaanimada waxay ka qaateen kismaayo ka qaata kismaayo ka qaateen marka xaggan reer kismaayona xagga ka qaata xagga ka qaataan oo dee mashruuc yaaba kamid ah iyo maarata iyo geeli oo ragga hadda ugu adaga Jubbaland difaaceeda banaanka u taagan xildhibaanimadooda iyo kursigooda wuxuu yaalaa koonfur galbeed magaalada baydhabo yaalaa marka horta dadku waa dad isku mid ah dad ehela dad isku deegaan ah isku dhaqan ah aan kala maqnayn weeyaan laakiin marka la yiraahdo maamul ahaan laba maamul bay kala yihiin maamulka marka koonfur galbeed hadda ciidamadiisu ay magaalada doolo imaanayaan qaybtii koowaad maahana waa qaybtii labaad ee magaalada soo gaaraysa deegaanada Jubbaland ay ka arrimiso qaybtii hore Kismaayo tadoo ciidankii ka soo baxay magaalada Baran Kismaayo jooga hawli meel uga bixin dowladda Jubbaland baa gacanta ku haysa maamulkooda ciidamada koonfur galbeed iyagoo laba jeer kala socday Jubbaland ku sugan oo laba kala jooga waxaan isweydiin mudan ciidankaasi dee hadda rag ka soo horjeeda maamulka la dhisayo oo moodid meeshii ay ka talinayeen waxyaabihii ay ka digayeen inay saaka ka socoto oo iyaga hadda marxalad aad ay ku dagaalami karaan oo fiican ay u taalo jaanis aad qurux badan bay haystaan oo nimankii ku soo duulay 5 meelood buu kala jabeen nin maanta la socdo male كل برنامج شغال كده قدوم ناي ساك يجوا سيد رأي وكلا عرّيا يا مارت محمد رضاي يا لاركي يو هذا ميل مركز وأنا السركان والمسؤولين تيعيدن كدمة قوامة يقاتن وحالة فيلا يا إذا ما سي هالكاسة مارت محمد رضاي بيس النقطة دونتا بيس كاس نحن نقطة دونا بيس إذا ما كونفور قلبات دبلو الريو هو هنا سما صادق بس على مرك كوي حكى سو ما تجيب لنا مكورسة كوي كاس عرّيا تجيب لنا مكورسة لوق على الزودة في مارت تجيب لنا بعجة كاسيا كارياشي يوعي وصاص على رجو وحما قاضيان دقيقة ديارة ورد طول عارضها قاعدين أنتو كسب بحي حمر أو إلا بورها كبسوس السعودي أو دينولا يسوم مري هك عبي نبقى بصدي يلا يا حمق قاضي كوكاش أنا إيه كاد كوكاش أنا وقنا وإن لا شيء حدي ديارة طول عارضها الله صعدان وحد وحي معارض كمالك دويتاي كلا شرين مارت تركيا أنا وصح وحد جدك وحرين جدك هذا اللي سوق هذا شباب وحرين كيم مقدشي يودحي برعكه مريض باتريه حتى شمبري مسا امر كود لا انت ما مركرته ادو ما صدق marka hadii diyaarada wal carada wala la helayana kismaayo la iman maxaa luuq kismaayo iman karaan baaburtaas inta soo maraan waliba dhinacan xeebta soo maraan hadii diyaarada wal carada la waayna bay dhaba sidii lagu joogi lahaa la soo haystaa ادو ما صدق magaalada Balad Xaawo ciidamada tababar loogu soo xidhay la yiri mas'uuliyiin baa ka hadlay Janal Abbas oo kamid yahay dabcan xil waqan kooga Cabdirashiid Janan oo isagana shalay hadlayo oo ra'iisul wasaarihi baa saa yiri doolo anaga nooma xidhnada ku hayaan halkay isagana oo halkiisa soo ka batarinay soo dhaw maxaa ka jira Balad Xaawo horta Balad Xaawo dagaalku soo uga dhacay maarata maxaan ku raadayay ciidamada Jubbaland ay uga baxeen magaalada banaankeedaba magaalada korkeeda deganaan ciidamada Jubbaland waxaana halka ku sugnaa madaxweynaha ku-xigeenka Jubbaland baa ku sugnaa magaalada Balad Xaawo sanad iyo xogaa fadhiya mise laba sano fadhiya adoo deyntii hadda uu wixii ka dambeeyay dagaalkii Balad Xaawo dagaalkii Kamboni madaxweynuhu dhinacan uu badnaa oo dhinacan maarata maxaan ku raadayay xaggan u jira ciidamo qaar ka soo goosteen ninka la dhaho Cabdirashiid Janan iyo ciidankii Jubbaland iyo ciidamo kale oo cusub oo tababar dib loogu furay magaalada Balad Xaawo korkeeda ku sugnaa ciidamadaas tababarkii maanta ay dhameysteen maanta iyo dhameystana loo soo xiray waa ciidan kuru ahaa la xareeyay waxaa la isku daray ciidamo ka soo goostay Cabdirashiid Janan oo ciisa ka tirsanaa ciidankiisa kamid ahaa oo UK ka yimid oo ka soo gadooday dilalkii faraha badnaa ee magaalada ka dhacay gudaheeda ka soo kala gadgoodo marar kala duwan ka soo baxay oo markii u dambeysay markii ninka nabadoonka ahaa la dilay ciidan waxoogaa ay ka soo cadhoodeen oo magaalada ay ka soo baxeen ay ka diideen oo dhaheen shabaab ma laynaya dadka waxa laynaya waa wax kale waa beegsi qabiil ciidamadaas oo intooda badan isku haybo iyo ciidamadii Jubbaland ee kolka hore magaalada Balad Xaawo laga soo saaray iyo ciidamo kuruud oo cusub oo shacabka dhexdiisa ka yimid ayaa tababar loo soo xidho ciidan 1500 la igu sheegay ayaa tababar loo soo xidhay maanta yaa soo xidhay waxa uu soo xidhay taliyaha ciidanka daraawiishta Jubbaland ee gobolka Gadow oo ah Janal Abbas waa hagaag Janal Abbas markii ciidanka uu tababarka soo xidhay hadallo meesha ka yiri waliba ciidanku si weyn ula hadlay oo uu kala hadlayay dilalkii ka dhacay magaalada Balad Xaawo wuxuu ku eedeeyay Cabdirashiid Janan iyo ciidankiisu inay ka dambeeyaan
sidee uu ku sheegay jenaraal cabaas horta iyo mas-uuliyiin kale oo meeshaasi ka hadleen jenaraal cabaas laakiin wuxuu ku dheeraaday dilalka ka dhacay magaalada beled xaawo beled xaawo gudaheeda weliba shaksi u dul istaago yidhi hebel nabadoon hebel iyo siyaasi hebel iyo ganacsade hebel iyo dhalinyarta noocaasa iyo hebel iyo hebel hebel oo magac dhabay yaa laayay marka isagu muusan afkiisa ka dhahaynin cabdirashiid baa laayay markuu dhaho yaa laayay ciidanka ka dambeeyey oo yaa u jawaabaya waxay dhahayeen indha korey baa laayay oo ula jeedaan cabdirashiid janan waa naanays kale oo uu leeyahay waa in isaga yidhahdaan maqraati afkiina ka furda yidha afkiina maqraat idinku maqraati fur yidhi afkiina ha ka yedhi inuu ninkaas dadka leynayay marka ninkaa inay ciidankiisa ka soo duulay magaalada muqdisho een rasaasta haysanin ee rasaastooda iyo gurmadkooda uu yahay diyaaradii yareyd ee maarata maxaan ku dhahday 20 ruux qaadaysa muqdisho ka imaanaysa uu gurmadkoodu yahay war shacabkeena inaan ka dulqaadan diyaar muutin bule ma saas odhanaya hataa muxuu dhahayaa shacabkeena inaan ka dulqaadno oo dilalka la dilayo iyo xasuuqa la xasuuqaya shacabkeena oo indha koraya xasuuqaya aan ka dulqaadno diyaar muutin hal cadow baynu leenahay halka cadow baynu leenahay waa ciidan waa shabaab laakiin hor la abaabulaya miyaa markaa dabcan lama abaabulaya way taagan tahay colaadu oo diis ka soo socotay adeer dadkan inay sida luuq oo kale u wada noolaadaan maxaa diidan wadada walaalahay maxay isu dilayaan aqligu hadduu shaqay horta markii koowaad maan cabdirashiid janan oo uu dagaal galo xilligu dagaal galo ma taqaanaa xilliga dowladda intuu mandate-ku ka dhamaado xilliga inta dowladda mandate-ku ka dhamaado dowladda lugaheediiba lasii arkay madaxeedii tegey minjahadu sii muuqdaan beled xaaweymaano baal dagaal onba dalaq dhihi dagaalkii dhex bartan kaga jiro dowladda dhici ase xabsi guri toddobaad timaadana xabsi guri bay ka dhigi ma garatay lama soo adeegsanin lama yeedhin intay dowladdu ay satalka ahayd ee deganayd ee xaaladda caadiska ahayd wax la kala goosanayay cid waxba kuma falin cabdirashiid cabdijanan waxaa loo yeedhay markii dowladdu mandate ka dhamaaday dhacday dagaalka raaskambooni kusoo jabtay dagaalo kale gashay kusoo jabtay awgeed la gubay oy dowlad basanbaastay tahay oy kusoo hadhay boobkii magaalada muqdisho iyo urursi ku jirto yaa loo yeedho la yidhi dagaalka orodgal dagaalka hadda waa ku jiraa ciidan hadda intuu ka soo baxo dowladda federaalkii ay soo dirto oo intuu gedo soo dhex maro gedo oo dhan soo dhex maro beled xaawo ugu imaana waa calaa 10 timan ka soo baxeen waa calaa 10 timan ka soo baxeen ma ciidan dowladda federaalka ciidan dowladda federaalka intuu ka soo baxo meesha la dhaho baydhabo magaalada muqdisho balaa kala ka horeysa diyaarada lagu soo guri maxaa airport Soomaaliya iyagu beled xaawo ay haystaan garoon bay leedahay meel diyaar ka tagtay ma jira garoonta waqti u baahan la dhisay sanado u baahan sanado qaadanay duu weer 8 saac bilood qaadanay garoonka dhoble ka soo dejinay ya marka dhoble ilka casaan oo galaalaynin inta dawladda bal gaadhin ya Abdullah James nin la yiraahdo oo taliyaan nabad sugida dhowleya oo liwaaxa aan ogolaanin inta xataa Axmedow oo ogolaado yiraahdo ba ka soo dega aan dumar la wasaragne okay marka nimankaas option ma hayaan waa iska kaftan waa weey in Jubaland ay haysato dhowle laakiin Cabdirashiid ma shalay baan arkay isagoo hadlayo arrintii ra'iisul wasaaruhu ka hadlay maalinta dhaweyd ee garoonka ku saabsanayd Dolow ka hadlaya inkastoo dowladda federaalka meel hadda ay ciidan ka soo dejiso gada kamid ah ina waayeen oo ay baar dheer haysato oo ay garbahaare haysato oo ay meelaha ka soo dejin karto ciidamo oo ciidamadaasna hadii gurmada soo dhaqaaqaan saacada ay iman karaan saacada iman karaan wada isla saacada moogta goolkeeda kala garanayni ka garbahaare ka soo dega u soo mar beled xaawo shabaab baa dhexda dhan dhoobanay oo dhexda soo shabaab buurha kabi uma dhaxin muqdisho walaal waxaa soo mariyay diyaaradii tabalcaarada waa magac shabaab daarada horta joogta shabaabkii hawiye isfahmeen nimankaas ma jooga xaggan shabaab salaam calaykum feeri nin fiilow la dhaho oo dhaga xiran waraalahow dhagasada nin fiilow loo dhaga xiran war nin oo dadkaaga laa la yidhi on wax kale marin baa jooga ninka la hadlay mahad karaatee waa nin fahmayo reer magaala war ma ay dhageyso ma kaba ku tukadaa magaala ilaahay kaba ku tukadaa la hadlay miyaa ka la hadlay waay fiilow way ka reer magaalsan yihiin حرام بقى إنه فيلو العقد هذين فيري دارات عجل بالك اللي عجل قاس فلو كل من يانون لا ديارات دقيسو كده حماية شاب دارات يهوي أنا ما كان له ما قرر وياش ما يجوي لما كاس محوس أحمر ما أفك صور أفك أحمر تقول ما أفك أحمر يعني كم أحمر كرام إذا التاريخ ولي قلنا أحمر كرام هذا ما صدق
maxaa marka hadda marka la fiiriyo hadda xaaladan jirtay iyo ciidamadan la soo urursanayay iyo Cabdirashiid oo isna meesha yimid iyo xaalkani marka saansaan noocee muuqata horta ciidamada Cabdirashiid uu la joogo horta waa ciidamo maalin walba Cabdirashiid u hadla su'aashadan ka jawaabo maalin walba Cabdirashiid u hadlaa huwa maanay wayada ma arag intuu yimaadaba maalin walba hadda intuu u hadlaa hay maalin hore ka kale rasaasta ciidanku ridaan aad u hadlayo lahaa magaalada xabadka ka daaya halka waxaa ka cadinayna ciidan control inay magaalada xabadka kala daalaan oo gabdhaha jaadka keena ay xoog kaga qaataan ciidankaasi ciidan badan oo kamid ah horta siyaabo aad u akhlaaq iyo ku jiraan oo ciidan intay cabursan yihiin hawlgal aan aadin aan la caburinin oo awaamir adag hadii lagu soo rogo la isleeyahay maarad maxaan ku raabay goosanayaan oo kii yar cadaadiyaba ama doolo oo goosanayaan ciidankan dul degan oo goosanayo yaan horta ciidanka hadda uu ku haysto intooda badan waa inta diyaaraduhu maalinku imaanayo 20 wiil buu la yimaadaa maalinku tagay hal wiil buu la tagaa markuu imaanayabana 20 wiil buu la soo degaa oo diyaar soo saarta ciidanka horta 90% waa ciidan horta Muqdisho laga keenay meesha ku sugan waana ciidan dhowr boqol ah ciidanka dhowrka boqol meesha ku haysto maalin walba waa la hadlaa dool hadda maalinku ka hadlayay uu lahaa madaxweyne wasaare waa furay taasina dawladda dhexe u xidhan tahay cid walba ogta Jubbaland ma xidhna diyaaradda Muqdisho ka yimaadaan diyaarad Kismaayo ka yimaado la joojiyay male awaamir ka soo baxday gudoomiyaha Lafeyn oo lagu joojiyay ma Jubbaland ma naan garoonka barnaamijyadan kalaan maalmaha soo socda kaga hadli doonaa intaas ku soo gabagabeynayna qodobkan Cabdishakuur Faarsa ila joogay intaynu markale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.